Assalaamu calaykum asxaabta. Waxaan rabaa halkan 10 adjectives inaan ku barno. Waa qaybtii saddexaad ee aan uga hadlayno 8 qaybood oo hadalka ah. Qaybtan saddexaad ka hor intaanan guda gelin waxaan rabaa inaan xasuusiyo waxaan soo barnay nouns. Nouns waxaa ku sheegnay magacyo. Magacyadaas oo ay leeyihiin dadka, xayawaanaadka, goobaha iyo ashyaada. Magacyadooda ayaan soo barnay. Sidoo kale waxaan soo barnay magacyaalo ay ka mid yihiin shakhsiyaadka kala duwan oo ficil sameynayo. Shakhsiga koowaad, shakhsiga labaad, shakhsiga saddexaad wixii lagu dhaho ayaan soo barnay iyagoo keliya iyo iyagoo jamca. Haddaba intaas haddaad fahamtay oo ila socotay, haddana waxaan rabnaa inaan fiirino erayo sifeynaya magacyadaas iyo magacyaaladaas aan soo barnay. Waxaana la yiraahdaa ereyadaas adjectives. Haddaba adjectives maxaa weeye? Af Soomaali markaan ku micneyno waa erayo loo isticmaalo si loogu sifeeyo ama warbixin dheeraad ah magaca ama magacyaalada ay uga bixiyaan. Haddaba ani deeqa haddaan ahay, deeqa waa qof nooceed ah. Ma qof waalanba, ma qof fiyowa, ma qof xunba, ma qof fiicanba. Magacyadaas liigu sifeynayo oo aniga warbixin dheeraad ah liiga bixinayo ama liigu isticmaala si liigu sifeeyo ayaa waxaa la adjectives. Qalinkan hadda waa qalin guduudan waa markaa dhahay waa sifeynayaa inuu guduudan yahay waa sheegayaa sababta wuxuu qorayaa guduud. Soo qalinkan waxaa weeye waa qalin guduudan. Waxaan ka hadlay kalarkiisa oo ah guduud. Soo waa sifeeya qalinkan warbixin asagoo ku saabsan oo dheeraadan ka bixiyay. Soo haddaba magacyadaas aan u isticmaaleyno in magaca ama magacyaalada aan warbixin dheeraada kaga bixino ama dadka kale markaan ugu sheegayno ayaa waxaa la yiraahdaa adjectives. In simple terms, adjectives they describe more about the nouns or pronouns in English. Waa kuka. Haddaba 5 xabo kaliya soo qaatay way fara badan yihiin laakiin inta haddaan kuu sharaxo fahamtid dee adiga xisaabaadka isku dardarso oo 1 + 1 markii aan ku dhaho haydin 5. Okay, ereyga koowaad waa happy. Happy micnihiisu af Soomaali waa farxad. Farxaddaas yaa faraxsan, aniga ma faraxsan, adiga ma faraxsan waa arki doonaa. Laakiin waxa ay warbixin dheeraad ka bixinaysaa magaca. Heblaayo way faraxsanta markaan dhahayo dee waa sifeynaya farxaddeeda ayaan sheegayaa. Large ereyga labaad waxaa weeye waa weyn ama ballaaran. Waxaana ula jeedaa specific magac khaas ah ama item oo horteeda yaalo. Soo marka waxay dhihi doontaa hadhow big ayaa weyn ah laakiin big waa general wax weyn oo general ah laakiin large marka isticmaalo waa khaas oo shay khaas ama magac khaas oo aan markaas isticmaalay ayaan ula jeedaa. Soo waa weyn ama ballaaran. Lambar 3 waxaa weeye slow. Slow waxaa weeye wax dhaqaaqaya ama soconayo ama la sameynayo oo si tartiib ah loo sameynayo. Soo qofkan socodkiisa waa tartiib markaa leeyahay hadalkiisa waa tartiib. Waa qof asaga dhan si tartiib u socdo waxaa isticmaalaya slow si uu ugu sifeeyo qofkaas. Alright, lambar 4 waxaa weeye clean waa nadaafad ama nadiifin waay. Halka marka nadaafad ma dhahayo waa clean bas waa ereygan. Soo guriga waa nadiif markaan leeyahay nadiifkaas ayaa waxay tahay sifo waxay sifeynaysaa gurigaas inuusan wasakhsanayn ama wax ka haleysnayn uu nadiif yahay carfayo qurxan yahay. Lambar 5 waxaa weeye strong waa xoog oo muuqaal ahaan buu qofka u dhisan yahay, murquu leeyahay, wuu xoog badan yahay, culays weyn buu qaadi karaa ama maskaxiyan buu u dhisan yahay oo awood dheeraad ah oo dulqaad iyo adeeg buu leeyahay waa u isticmaali kartaa si aad qofkaas ugu sifeysid. Soo haddaba intaan haddaa ila aragtay aragna jumladaha si loogu isticmaalo si aad wax badan uga fahamtid. Soo jumladii sentences weeye. Soo jumlada ugu horeysa waxaa iri my students are happy today. My students are happy today. Mydan waa erey lahaanshiyo ah waan baran doonaa iyadana waxayna isticmaali kara qofka koowaad oo ama shakhsiga koowaad ficil sameeyaha my waxayga. Students ardaydeeda are happy way faraxsan yihiin today maanta. So happy iyo sifeynaysa ardaydeeda sababtoo ardaydeeda maanta way faraxsan yihiin. So ardaydeeda farxadooda ayay idin sheegaysaa
ama aniga aan ka hadlayaa si aan warbixintaas idinkaga dabageeyo. Haddaba number 2 waxaan leeyahay he bought a large bag. jumladan waa jumlad waqti lasoo dhaafay dhacday. ficilkan waa bought, waxaa weeye ereyga originalkiisa buy. lacagaa wadataa wax baa soo gadanaysaa, you buying. So bought markaa leedahay waa soo iibsatay mar hore, wixii waa isticmaalaysaa. So he asaga bought wuxuu soo iibsaday a large bag, boorso weyn oo ballaaran. boorsadaas bag ayaa la yiraahdaa. bagga marka wuxuu noqon karaa boorsooyinka lagu safro oo weyn. So marka waa khaas, ereygan magacaas khaaska ah ama aniga hadda isticmaala ayaa u adeegsan. big bagna waa la dhihi karaa, laakiin tan hadda specifically waxaa u isticmaala the size. Alright, he bought a large bag, boorso weyn buu soo gatay. Alright, number 3 the turtle ama the turtle labaduba waa la isticmaalaa is very slow. haddaba magacan the turtle hadduu kugu cusub yahay waa bahal diidiinkoo kale ah, biyaha ku dhex nool, dabaasha, laakiin si tartiiba u dabaasho ayaa la yiraahdaa. laakiin diidiinku wuu egyahay waa isku cid. diidiinka tortoise allah marka waxaa dhihi kartaa the turtle is very slow. slowda markii u noqotay diinkaasay u laabatay oo ah mid tartiib ah. even the tortoise waa dhihi kartaa diidiinka waa slow, markuu soconayo waa tartiib buu u socdaa. So marka the turtle is very slow, diinkaas waa tartiib buu waa mid tartiib ah, waa socod kuma jirto, laakiin in uu asaga dhan tartiib yahay naloo sheegayaa, magacaasaa la sifeeyey. Okay, next waxaa weeye the room is very clean now. The room is very clean. The room qolka is very clean now. Very waxaa weeye aad ayuu nadiif u yahay qolka now. So clean marka halkaa nadiifka waxay u noqonaysaa qolkan. qolkan waa magac ayuu ka sii yahay. and things placesna wuu noqon karaa maadaama meel lagu nool yahay oo la degan yahay tahay. So specifically waa place. So clean, this place waa clean, meel wasaq oo maahan. goormay tahay? hadda. now hadda waayo. So maxaa leeyahay the room is very clean now. qolka hadda waa nadiif. 5 waxaa waaye she is a strong woman. she iyada is waxay tahay strong woman. strong waa xoog, woman laga yaabo muuqaal ahaan inay u xoog badan tahay. woman waa dumar, waa qof dumar ayaa la yiraahdaa. dumarka naag, laakiin naag ceeb waa. Okay, woman waxaa waaye qof dumar ah. strongna waxaa waaye xoog. So iyada waa qof dumar oo xoog badan, waa naag xoog badan. iska dhacday maxaa ka galay? The strong woman waa naag xoog badan. So xooggeeda muuqaal ahaan markaad fiirisid ma intay jiim soo qaadad leedahay way xoog badan tahay, mise waxaad leedahay caqliyan iyo maskaxiyan u dhisantoo adeeg bay leedahay wayna xoog badan tahay. haddaba taa doontid adiga ka dhigo, laakiin jumlad ahaan saana loo isticmaalaa, magacaana sifeynaysa. haddaba ereygan adjective-ka ah mar walba magac miyuu kasoo hormaraa musoo ka daba maraa? of course labada qaab buu ku yimaadaa. halka haddaa aragtay magaciyaa horeeyo ereygiyaa dambe. good. halkan sidoo kale haddaa aragtid ereygii adjective-ka soo horeeya magaciyaa dambe. lacala hadda kanoo kale sidoo kale wuu u dambeeyaa. ereygii adjective-ka u dambeeyo magaciyaa soo horeeyo, magacaa soo horeeyo adjective-ka dambeeyo, adjective-ka soo horeeyo magacaa dambeeyo. haddaba sidaasay u dhaqmaan. midda kale adjective-kan ereygan waa balaare ilaa 5 qaybood u qaybsamaa, maadaama qolooyinka u hadda bilow yihiin. hadda ma sii dhexgelayo oo si detail uma sheegayo, laakiin waa baran doonaa slowly insha Allah, waana fahmi doontaan. intaan horta the big concept ama generally si guud u fahma, kadibna waa